بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubaraha oo aan idinku soo gudbinayno wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka ka dhacay saacadihii la soo dhaafay ilaa iyo daqiiqadan qodobada barnaamijka caawa idinku haynana waxa kamid ah xuutiyiinta Yemen oo ka warbixiyay hawlgallo culus oo caawa fiidkii ay ku qaadeen gudaha Israa'iil afayeenka ciidamada xuutiyiinta ayaa xaqiijiyay goobo ay weerareen iyo hubka ay u adeegsadeen weeraradaasi oo shaaciyay Mareykanka oo isna duqeymo ka geystay wadanka Yemen wax yar oo kadib markii xuutiyiintu ay duqeeyeen gudaha Israa'iil dhanka Gaza xogaga iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa caawa gantaalo ku garaacay ciidanka Israa'iil ku soo qulqulaya aaga Najrin waa weerarkii ugu dambeeyay hawlgallo dib ay u bilaabeen xogaga iska caabinta Falastiiniyiinta oo ay ku beegsanayaan ciidamada Israa'iil xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo mar kale ku celiyay in ay diyaar u yihiin in ay duqeymo ka dhan ah Iiraan fuliyaan haddii heshiis nuclear-keeda ku aadan aan la gaarin isla caawa Iiraan waxay bilowday in nidaamka difaaca gantaalada lagu xoojiyo gobolada wadankaasi arrintaasi oo loo qaadanayo abaabul isdifaac dalka Bangladesh waxa laga soo saaray amar lagu soo xirayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Britain sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa dal muslim ah oo ku dhawaaqay in dadka baasaboorkiisa wata aysan tagi karin gudaha Israa'iil oo baasaboorkaasi aysan u isticmaali karin sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinku hayaana waxay ku aadan tahay kabaha halkan dhooban waa magaalo ku taal Yurub oo si la yaab leh loo xusayo carruurta Falastiiniyiinta ee dhibaatada ka soo gaartay duqeynta iyo weerarada Israa'iil ee ka wada marka Gaza dhammaan sheekooyinkan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee degdeg ah soo kordha ayaan idinku soo gudbinaynaa waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclear-ka Iiraan inkastoo maalintii Sabtidii wada hadallo dadban magaalada Masqat ee dalkaasi Ammaan ay ku yeesheen wakiilo ka socda Mareykanka iyo Iiraan haddana weli Mareykanka waxa ka soo yeeray hadalahan jabaada hadalladii ugu dambeeyay ayaa sida warbaahinta Mareykanka ay sheegayso waxay ka soo yeereen xogayaha gaashaandhigga ee wadankaasi Mareykanka Pete Hegseth waxaana uu sheegay in Mareykanku uu rajaynayo hal dhanka diblomaasiyadda oo looga hortago Iiraan in ay horumarayso hubkeeda nuclear-ka haddiise wuxuu yiri ay suurtagal noqon weydo ciidanka militariga ee Mareykanku waxay diyaar u yihiin wasi hadalka u dhigaya si xooggan inay u garaacaan gudaha Iiraan diblomaasiyadda Mareykanka iyo Iiraan ayaa Sabtidii ku yeeshay wada hadallo dadban dalka Cumaan si loo yareeyo walaacyada reer galbeedka ay ka qabaan barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan Hegseth ayaa ku tilmaamay wada hadalladan ugu horeeyay ee ka dhacay Ammaan inay ahaayeen kuwa mirdhal ah iyo tilaabo wanaagsan waraysi uu siiyay telefishinka CBS ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa waxa uu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu rajaynayo inuusan u baahnayn inuu isticmaalo xal dhanka militariga balse wuxuu xusay inay cadeynayaan awoodooda inay si ballaaran u fulin karaan weerar xoog leh waa sida hadalka u dhigay Trump ayaa Arbacadii sheegay in tilaabo militari si buuxda loo fuliyaa suurtagal ay u tahay isagoo kaashanaya Israa'iil haddii wada hadallada ka socda dalkaasi Ammaan ay guul daraystaan tani waxay daba socotay digniin cad oo bixiyay bishii March taasoo ahayd in haddii heshiis la gaari waayo ay bilaabi doonaan duqeymo Trump horey waxa uga baxay heshiis afgarad ah oo nuclear-ka la xiriira oo Iiraan lala galay 2015 muddo xileedkiisii hore ayaa 2018 waxa uu si buuxda u cadeeyay in heshiiskaasi Mareykanku uusan qayb ka ahayn falanqeeyaasha ayaa waxay sheegayaan in Iiraan ay hadda toddobaadyo oo qura u jirto inay soo saarto hubka nuclear-ka oo ay adeegsan karto inkastoo Tehran ay si joogto ah u beeninayso inay samaysanayso hubka nuclear-ka taas oo ku salaysan fadwa ku dhawaad 20 sano ka hor oo soo saaray hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei kaasi oo sheegay in caqiidada islaamku aysan ahayn mid dhiirigelinaysa samaysashada hubka bini'aadamka gobaada waxaana la sheegayaa tan iyo fadwadaasi markii ay soo baxday Iiraan inaysan ku tala jirin samaysashada hubka nuclear-ka
laakiin gudaha Iiraan ayaa waxaa ka taagan doodo kala duwan oo la xiriira in dalku u baahan yahay samaysashada hubka nuclear-ka taasoo ay sabab uga dhigayaan cadawga Iiraan oo u soo farabaxsanaya loona baahan yahay in laga hortago cadawgaasi haddaba hadalkaasi markii uu caawa ka soo yeeray xogayaha difaaca ee waddanka Mareykanka muuqaallo baraha bulshada la soo dhigay ayaa waxaa ka muuqanaya ciidamo aad u fara badan gaar ahaan nidaamyada difaaca ee waddanka Iiraan oo ku sii socda gobollo kala duwan waddankaasi muuqaaladan sida halkan aad ku aragtaan waxaa lagu soo warramayaa in ay yihiin gaadiidka sida gantaalada iyo nidaamka difaaca oo galabtay ilaa iyo caawa ku sii walqulaya meelo kala duwan oo ka mid ah waddankaasi arrintaasi oo lagu fasirtay inay tahay Iiraan inay xoojinayso awoodeeda dhanka difaaca waxaana lagu soo warramayaa sidoo kale Iiraan inay ka fikirayso maalmaha soo socda in la soo bandhigo hub hor leh iyadoo wararkuna sheegayaan in maalmahan ay jireen hub kala duwan oo Iiraan ay soo bandhigaysay iyo weliba dhoolatusiyo kala duwan waa tahay wixii warar ah ee arrimahaasi ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah idmo wararkii ugu dambeeyay duqeymaha xuutiyiintu ay la beegsadeen caawa fiidkii Israa'iil goobaha la beegsaday iyo hubka la adeegsaday waan idin soo wadnaa warkaasi iyo duqeynta Mareykanku ku qaaday magaalada Sanaa laakiin markan waxaynu eegaynaa dalka Bangladesh oo dacwad ku soo oogay haweeney xildhibaan ka ah baarlamaanka waddanka Britain warbaahinta Britain iyo Bangladesh ayaa waxay sheegaysaa in mas'uuliyiinta waddankaasi Bangladesh ay soo saareen amar lagu doonayo in lagu soo xiro Tulib Sadiq oo ah xildhibaan British ah oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka haweeneydan ayaa la sheegayaa in lala xiriirinayo baaritaan musuqmaasuq oo baaxad leh guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Bangladesh magaciisa loo soo gaabiyo SCC ayaa ku eedeeyay Sadiq in ay si sharci darro ku heshay dhul taasi oo la xiriirta baaritaan lagu hayo iyo eedan loo soo jeediyay ayaydeed ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Bangladesh ee xilka laga tuuray Sheikh Hasina haweeneydan xildhibaanka ah ee ka tirsan baarlamaanka waddanka Britain waxaa la sheegayaa in laga soo doorto deegaanka Hampstead iyo Highgate ee dalka UK dhawaan ayay waxay iska casishay xil wasiir oo ay ka haysay xukuumadda waxaana ay ka mid ahayd ilaa iyo 50 qof oo lagu magacaabay baaritaan dalka Bangladesh ka soo baxa oo la dalbaday in la soo qabto qaranka u doodaya haweeneydan ayaa si adag u beeniyay eedamaha loo soo jeediyay isagoo ku tilmaamay been abuur cad iyo kuwa ku sifaysan siyaasad waxay sheegeen in Tulib Sadiq la soo bandhigay cadeymo rasmi ah oo lagu wargelinayo in la soo qabto UK waxay u baahan tahay cadeyn dhawa ka hor inta aysan fulin dacwado ku saabsan soo celinta maxaabiista iyadoo Bangladeshna ku dartay dalalka nooca 2B la yiraahdo ee heshiiska dhiibista maxaabiista guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee waddanka Bangladesh ee SCC waxay baarayaan eedamo sheegaya in qoyskii Sheikh Hasina oo ra'iisul wasaarihii hore waddankaasi ay lunsadeen lacag gaaraysa 3.9 bilyan oo lacagta poundka ama sterlinka lacagtaasi oo ku dhow ilaa iyo 5 bilyan oo dollar waxaana la sheegayaa inay ku timid mashruucyo kaabayaasha dhaqaalaha ah dacwadaha maxkamadeed ayaa waxay ku eedeynayaan xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dalka UK in ay door ku lahayd heshiis nuclear oo muran dhaliyay oo lala galay Ruushka sanadkii 2013 qarinada xildhibaanka ayaa waxay ku adkeysanayaan inaysan Sadiq weligeed ku yeelan dhul dalka Bangladesh sidoo kalena aysan saameyn ku yeelan qaybin dhul dad gaar ah loo xil saaray la taliyaha anshaxa ee xukuumadda dalka Britain Sir Lori Magnus ayaa sheegay inuusan helin wax cadeymaha oo ku saabsan wax isdabamarin balse wuxuu sheegay in ay ahayd in Sadiq ay ka fiirsato qatarta sumcadeeda la xiriirta ee ay la yeelatay Sheikh Hasina gudoomiyaha golaha la dagaalanka musuqmaasuqa ee waddanka Bangladesh Maxamed Abdul Mumin ayaa sheegay in baaritaankooda uu yahay mid ku sareysan cadeymo isla markaasna aanay eedamahaasi ahayn kuwa la xiriira dhanka siyaasadda waxaana ugu baaqay xildhibaanka inay timaado dalka Bangladesh si ay u wajahdo dacwadda iyadoo markaasi dhanka qaanuunka isku difaacaysa
واتهاي وركاسنا هالكاس أينو كل عفن سيدات كل ساعتين برنامج كي وركا عاوة عن ذي سو جدوني ساعة كهر وجاء حوتيتي أوضح كيمن أي جودها إسرائيل عاو فيتكي ويركو سوق هذه هذا ويركاس ملتري إسرائيل waxay ku sheegteen in laba gantaal ay ahaayeen oo ay ka hortageen laakiin afayeenka ciidamada xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa sida caadada ahayd waxa uu soo duway muuqaal oo kaga hadlayo weerarkaasi haddaba wakaalada wararka ee Anadolu ee laga leeyahay wadanka Turkiga oo warkan wax ka qortay ayaa waxay sheegaysaa in afayeenka ciidamada xuutiyiinta General Yahya Sariic uu soo saaray bayaan ay ku sheeganayaan mas'uuliyadda weerar lagu qaaday bartilmaameedyo ku yaala Israa'iil General Yahya ayaa sheegay inay fuliyeen howlgal ciidan oo tayo leh kaas oo ka koobnaa gantaalada nooca balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-ka kuwaasi oo lala beegsaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil bayaanka ayaa waxa uu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa gantaal nooca loo yaqaan Zulfiqar oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha Ben Gurion ee ku yaal agagaarka magaalada Tel Aviv ahna garoonka ugu weyn Israa'iil sidoo kale Yahya wuxuu sheegay in gantaal kale oo ah nooca hypersonic oo ah gantaal kale yiraahdo Falastiin labo in ay la beegsadeen saldhig lagu magacaabo Sodit Misha iyo nidaamka difaaca gantaalada aarowga ee bariga Ashdod ku rakibnaa waxa kale oo sheegay diyaarad aan duuliye lahayn in sidoo kale ay ku beegsadeen bartilmaameed muhiim ah oo ku yaal magaalada la yiraahdo Asqalaan oo Israa'iil ay ugu yeerto Ashkalaan General Yahya Sariic oo arrimahan ka hadlayay wuxuu yiri cadawga Israa'iil iyo Mareykanku waa inay fahmaan in Yemen hoggaankeeda dadkeeda iyo ciidamadeeduba aysan ka laaban doonin taageerada ay u hayaan shacabka Falastiin iyadoo aan loo eegin buu yiri cawaaqibka ka dhalan kara gorsii horeysay militariga Israa'iil ayaa ku andacooday inay ka hortageen gantaalo laga soo riday wadanka Yemen inkastoo muuqaal la soo dhigay baraha bulshada lagu arkayay haraaga gantaaladan ku soo dhacay gudaha Israa'iil oo meel kala duwan lagu arkay isla wararkan waxaa lagu soo waramayaa caawa Mareykanka duqeymeyn oo ka geystay wadankaasi Yemen duqeyntan ayaa waxaa la sheegayaa inay ka koobnayd ilaa iyo 3 waxaana la beegsaday warshad ku taal deegaanka la yiraahdo Al-Sawari oo ku taal degmada Berimatar ee duleedka magaalada Sanaa waxaana warkuntaasi ku daraya in ugu yaraan 2 qof ay geeriyoodeen halka 10 kalena ay dhaawacmeen duqeyntaasi Mareykanku halkaasi ka geystay ayaa sababtay qasaarahan afayeenka xogaga xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa intaynu barnaamijkan ku jirnay waxa uu soo tuuray war ay ku sheegayaan inay dhulka soo dhigeen diyaarad nooca drone-ka ah oo duuliyaha lahayn oo Mareykanku ay leeyihiin waxaana uu sheegay in diyaaradan oo ah nooca loo yaqaano MQ-9 lagu soo riday hawada gobolka Hajja ee wadankaasi Yemen waxaana uu sheegay in ay ku beegsadeen gantaalada lidka diyaaradaha Yahya Sariic ayaa waxa uu sheegayaa in diyaaradan ahayd tii afraad ee 2 asbuuc gudahood ay soo ridaan waxaana sidoo kale uu sheegay inay tahay diyaaradii 19aad oo ay soo ridaan waxaana uu sheegay sidoo kale in weerarada Mareykanku ay ku hayaan wadanka Yemen aysan inaba haba yaraatee ka hortigin in ay waqaadaan weerar kala duwan waxaana la sheegayaa diyaaradda inay tahay diyaarad casri ah mararka qaarkood waxaa loo adeegsan karaa duqeymaha marna waxaa loo adeegsan karaa dhanka sirdoonka ama sahaminta qiimaheedu waa $30 milyan oo dollarka Mareykanka ah dhanka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ama taliska ciidamada Centcom war ku saabsan diyaaradan la soo riday kama soo bixin ilaa iyo hadda inta aynu barnaamijkan ku jirnay oo warkan uu soo dhacay وهاجاج قرن وحنا قد بدونا نك قزة halkaasi oo lagu soo waramayo in warar kala duwan ay soo baxayaan gaar ahaan duqeyna dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniinta goordhawayta ay ku qaadeen saldhigga Naaziriin sidoo kale 250 saraakiil ah oo ka tirsan laanta sirdoonka ee Mossad ayaa ku biiray godadka ciidamada Israa'iil wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo faanaya iyo Xamaas war culus soo saartay iyo sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka xagga Gaza aynu eegno maanta waxaan idin soo gudbinay gaar ahaan barnaamijyadeeni kala duwanaa ee wararkii maanta iyo wararka caawa hawlgalo kala duwan oo xoogag iska caabinta Falastiiniintu ay qaadeen wararka caawa waxaan ku soo gudbinay
kataa'ib alqasaam garabka hubeysan ururka xamaas oo sheegay rafax guri miinooyin ay ku xireen ciidanka Israa'iil intay soo galeen inay ku qarxiyaan dhimasho dhaawac ay u geysteen waxa ka sii horeeyay Saraaya al-Qudus ayuu sheegay inay duqeeyeen oo hubiyaal ay ku garaaceen ciidanka Israa'iil haddaba dhinaca kale war haatan goor dhaweeto telefishinka Al Jazeera oo baahiya waxa lagu sheegay in kataa'ib alqasaam ورالي هذا وسرايا القدس وقرب كهوبسن أورك الجهاد الإسلامي إن عندما إسرائيل وكسرنا بنك جيد بريء نازرين إن كجراعين تروجن الله وهو بيلا لنا عكلا ورجيسكا يدعو تحرنات يكسب حي إسرائيل يوحوا الشيقية إن لابد بقول يكنتر حملات وهراء وصل الشقية لان تصيردون كمساعد إسرائيل إن كوبيران ضرباتك لوجود البانيو دجال كين للجوجي سوار كاسنا محابسته إلى السودايو وحنا سو كلا إليهن دجال كان لجوم السودين كرا محابسته لكن وزيرك جاشانديك إسرائيل كيتس أيا جوردويتو waxa uu sheegay inay balaarinayaan wasiyadalka u dhigay aagiga amniga ee waqooyiga Mareykanka Gaza isagoo taana ku sheegaya in haatan ay la wareegeen aaga leerada Maarooj ee kala qaybinaya Rafax iyo Khan Yunis waa koonfurta Mareykanka Gaza Katis ayaa fariin ku qoray baraha bulshada waxa uu ku sheegay in markaasi inta Xamaas ay sii wado diidmada sideeta maxaabiista howlgallada ciidanka Israa'iil ay xoogaysan doonaan isagoo sheegaya in ay beegsanayaan dagaalyahanada Xamaas si loo burburiyo kaabayaashooda ay ku tiirsan yihiin wuxuu yiri Gaza maalinta ka dambaysa way sii koobmaysaa ama way sii yaraanaysaa goodoon ayay gelaysaa waxaana uu leeyahay dad badan ayaynu ka dhaxin doonaa aagaga dagaalka dhinaca kale markii warkaasi uu ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil ururka Xamaas ayaa markiiba waxay soo saareen bayaan waxaana ay sheegeen in isku dayga Israa'iil ay ku doonayso in ay ku saarto ururka Xamaas fariimaha iyo cadaadiska dhiigga leh in markaa taasi ay ula leedahay Israa'iil in kooxda ay ku qasbaan sideenta maxaabiista laakiin bayaanka Xamaas waxa lagu yiri Netanyahu iyo xukuumaddiisa wax horumaraha kama gaari karaan arrinta maxaabiista haddii aan la helin heshiis isdhaafsi maxaabiista ah kordhinta dagaalku waxay qatar iyo khasaare xoog leh gelin kartaa baa yiri maxaabiista oo sida muuqata naftooda ku ciyaaraya Netanyahu waxay sheegeen in sida kaliya maxaabiista lagu soo deyn kara ay tahay in dagaalka la joojiyo heshiisna la gaaro waxay ku eedeeyeen Netanyahu inuu ka cagajiidayo heshiis caynkaasi ah in la gaaro waa tahay markan bal aynu dib ugu laabano wararka waddanka Bangladesh dalkan ayaa wuxuu ku dhawaaqay qof kasta oo sita baasaboorkiisa iyo muwaadiniinta waddankaasi baasaboorka inaan lagu tagi karin Israa'iil hadda ka hor xitaa 700 ilaa 800 baasaboorka Soomaaliya xitaa waxa ku qornaan jirtay inaan lagu tagi karin 3 waddan Koonfur Afrika waxa xilligii ka jiray nidaamkii midabta koorka waddankii Origin Rhodesia ama Zimbabwe iyo waddanka la yiraahdo Israa'iil saddexdaas baasaboorka Soomaaliya waxa ku qornaan jirtay laguma tagi karo hadda bal aynu eegno warbixintaasi oo warbaahinta waddanka Bangladesh ay goor dhow tacaawo baahisay waxa la sheegayaa in waddankaasi uu si rasmi ugu soo rogay baasaboorka in lagu qoro qoraalka ah anshax ahaan dhammaan wadamada caalamka lagu tagi karaa marka laga tago Israa'iil baasaboorka waddanka Bangladesh waxay leeyahay tani waxay ka macno tahay mowqifka adag ee ku aadan xiisadda iyo dagaalada iyo colaadda u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waxa lagu soo waramayaa in sanadkii 2021 in laga tirtiray weedhan ku qoran baasaboorka Bangladesh xilligaasi oo ra'iisul wasaarihii hore Sheikh Hasina oo xilka laga tuuray ay ku dhawaaqday in laga saaro baasaboorka waddankaasi ereyadii ku qornaa ee aan lagu tagi karin Israa'iil laakiin Nalima Avroze xogayaha labaad ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee dowladda ee Bangladesh ee magaceeda loo soo gaabiyo BSS in amar la bixiyay toddobaadkii hore lagu faray in baasaboorada lagu soo celiyo qoraalkaasi kaasi oo diidaya muwaadiniinta Bangladesh iyo cid kasta oo baasaboorka sidata inaysan ku tagi karin gudaha Israa'iil tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay barnaamijyo ballaaran ay ka socdeen waddanka Bangladesh maalinimadii sabtidii 100,000 oo qof ayaa iskugu soo banaan baxay magaalada Dhaka
ee caasimadda waddankaasi si ay u muujiyaan inay garab taagan yihiin dadka falastiiniyiinta bangladesh xiriir dhanka diblomaasiyadda lama laha Israa'iil waxayna mar walba ku celcelisaa in xalka laba dowladood uu yahay xalka kaliya ee mushkiladda gaamurtay u dhaxaysa falastiiniyiinta iyo weliba Israa'iiliyiinta waatahay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay isla arrimaha Falastiin ayaynu ku soo qaadinaynaa laakiin magaalo ku taal waddanka Holland magaalada Leiden ayaa waxa lagu soo waramayaa in laga sameeyo maanta arrin cajiib ah sida halkan ay kaga muuqata bartamaha magaalada ayaa waxa la soo dhoobay kabo halkaas dhooban waa kabo waxaa loola jeedaa kabahan in lagu xuso carruurta falastiiniinta ee qasa lagu laynayo iyo kuwa ku dhibaateynaya marka waxuu leeyahay kab kasta oo meeshaas taalla waxay ka turjumaysaa ilmo dhintay ama dhaawacmay xogtii baa la soo ururiyey inta carruurta ee falastiiniinta dhibaatada ka soo gaartay marayka Gaza kabihii baa la safay halkaasi sida halkan idinkaga muuqata arrintaasi oo la sheegaya inay tahay tilaabo loogu talagalay in markaa lagu muujiyo arrinta inay tahay arrin dareen leh waxaan leeyahay waxaa loogu talagalay adduunyada iyo dunida inteeda kale iyo waddankaasi in dareenka dadka reer Gaza gaar ahaan carruurta lagu soo leexiyo xitaa carruur baa ka qayb qaadanaysa oo kabihii safaysa oo halkaas dhigaysa waa noocyo kala duwan kabaha laakiin waa carruur dad weyn kuma jiraan marka sheekaas ayaa maanta ka dhacday waddanka Holland waayahay adinku ra'yiga nagula wadaaga qaybta hoose ee fariimaha intaas ayaan caaw ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbina haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin mar kale daawashada barnaamijka nabadgelyo